بسم الله الرحمن الرحيم aan wax ka barano farqiga u dhaxeeya stock iyo bond hadda ka hor ayaan mid waliba gooni u soo sharaxnay ee fadlan ka dhigayso lifaaq hoose stock waa saami ama sheek halka bond uu yahay warqad maaliyadeed oo deyn ah haddaba labadooda waxa ay ka siman yihiin in ay yihiin warqado maaliyadeed oo loo adeegsado maalgelinada waxa ayna ku kala duwan yihiin walxa dhowra kuwooda ugu muhiimsanna waxaan uga hadlaynaa mid marka koowaad aan isla aragno qeexidda stock waxaa kaloo loo yaqaanaa share ama equity waana warqad maaliyadeed oo caddaynaysa in qofka sita uu ka mid yahay milkiilayaasha shirkadda soo saarta saamigaas qof waliba oo wata saami waxa ay qayb ka leeyihiin shirkaddii soo saartay markana aan aragno qeexidda bond ama warqadaha maaliyadeed ee deynta ah waana qaab ay dowladaha iyo shirkadaha ku helaan lacag maalgelin oo deyn ah warqadan waxaa soo saara dowlad ama shirkad waxaana gata dadka haysta lacagta dheeriga ah oo raba in ay maalgelin samaystaan haddaba marka ay dowlad ama shirkad hesho lacagtaas waxa ay ku maalgeliyaan mashaariicdii ay markaas u rabeen maalgelinta qofka gatay warqadan maaliyadeed ee deynta ah waa qof ka kireeyey ama ka ijaaray lacagtoodii dowlad ama shirkad oo inta muddada deynta ay socoto waxa uu helayaa qofkii lacagta lahaa dulsaar marka la gaaro dhammaadka muddada deyntana waxa ay helayaan dulsaarkii u dambeeyey iyo lacagtii deyn ahaanta uga maqnayd fiiro gooni ah qaabka dib u bixinta lacagta waxay ku xiran tahay hadba nuuca boonka uu yahay farqiga labaad ee u dhaxeeya waa qaabka looga helo faa'iidada haddaan ku hormarno saamiga badi ilaha faa'iidada waa labadan dividend iyo capital gain labadoodana horay ayaan uga soo hadalnay ee fadlan ka dhigayso sharaxaadooda waafi ah lifaaq hoose haddaba dividend ama faa'iido bixinta shirkadaha waxaa la bixiyaayo kale dhammaadka sanadka waxaana lacagta faa'iidada lagu qaadanayaa calaa saami halka capital gain ay tahay lacagta faa'iidada ah oo ka soo xaroota haddii aan iska gadno saamiga kuna gadno lacag ka badan miduu inoogu fadhiyo dhanka kale ilaha faa'iidada ee boonka waa mid ka timaada dhanka dulsaarka ama boqolkiiba inteebaa lagu kireeyey warqadan deynta ah halka isha labaad ay tahay capital gain middaas oo ah haddii aan ku gadno boonka lacag ka badan midda ku qoran tusaale ahaan waxaa ku qoran $1 balse waxaan ku gadnay $1,100 middaasna waa habka labaad oo looga helo faa'iidada farqiga saddexaad ee u dhaxeeya boonka iyo stocka waa dhanka khasaaraha haddaan ku hormarno saamiga waxaan dhihi karnaa khasaaraha soo wajihi kara qofka wata saamiga aad ayuu uga sarreeyaa marka loo fiiriyo boonka waayo qiimaha saamiga ma ahan mid go'an ee hadba waxa ay ku xiran tahay waxqabadka shirkadda soo saartay saamiga iyo axwaasha ka jirta suuqa haddii ay heer sare tahay saamiga qiimo fiican ayuu yeelanayaa haddii kalena hoos ayay u dhacaysaa halka dhanka bond ama warqadaha deymanka uu khasaarahooda ka hooseeya saamiyada khasaaraha ugu xooggan ee ku imaan kara qofka wata warqadda boonka waa credit risk hadda ka hor ayaan ka soo hadalnay ee fadlan ka dhigayso lifaaq hoose waana in qoladii qaadatay deynta ay bixin waayaan deyntii ama ay ku bixin waayaan muddadii loogu talagalay khasaaraha labaad ee soo wajihi kara dadka maalgashtay boonka waa interest rate risk middaasoo ah in dulsaarkii uu sare aado middaasna waxa ay keenaysaa in boonkii aad hadda haysatay uu qiimihiisa hoos aado waayo waxaa la soo saaray boon cusub oo ka dulsaar fiican midka aad maalgashatay markana aan aragno tusaale la xiriira saamiga aan dhahno waxaad gadatay 100 saami calaa saamina waxaa lagaa siiyey $10 haddaan 100 saami ku dhufanno $10 waxaa inoo soo baxaysaa $1,000 middaasoo ah lacagta guud oo aad maalgashatay aan dhahno qiimihii saamiga hadda waxa uu marayaa $15 haddaad xasuusato adiga wuxuu kugu fadhiyey $10 marka calaa saami qiimo ahaan waxaa ku darsoontay $5 oo hadda lacagta maalgashigaada waxa uu noqday $1,500 sidoo kale aan dhahno shirkaddii waxa ay bixisay faa'iido saami ama dividend calaa saami waxaa lagu siiyey $0 haddii 0.5 aan ku dhufanno boqolkaadii saami waxaad helaysaa $50 oo faa'iido saami ah ama dividend markana aan aragno tusaale la xiriira boonka ama warqadaha maaliyadeed ee deynta ah aan dhahno waxaad maal gashatay boon qiimihiisu yahay $1,000 sanadkiina waxaad helaysaa dulsaar dhan 5% muddada ay lacagta kaa maqnaanayso waa 10 sano haddaba inta la gaarayo dhammaadka sanadkaas waxaad ka helaysaa sanad waliba $50 middaasoo ku timid markaan 5% ku dhufanno $1,000 ee maalgelinta ah waxaa soo baxaysa $50 marka la gaaro dhammaadka sanadka tobanaadna
waxaad helaysaa $1,000 iyo kontonkii u dambeysay ee faa'iidada ahayd ama dulsaar ahaanta kuugu timid gunaanad dadka ama shirkadaha waxa ay maalgashtaan meelo kala duwan sida saamiyada iyo boonka oo kale waxaana sidaa loo yeelaa in la isku dheelitiro maalgelinta loona yareeyo khasaaraha iman kara sidoo kalena sare loogu qaado faa'iidada soo xaroonaysa macnayaasha financial instruments bond stock face value interest rate dividend credit risk fadlan ka dhegeyso lifaaq hoose oo aan hadda kor uga soo hadalnay mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo